magaciisu waa Eden Michael Hazard. waxa uu dhashay 7 Janaayo 1991. waa xirfadle kubadda cagta una ciyaara garabka ama kubad sameeyaha weerarka kooxda Real Madrid, isla markaana kaftan u ah xulka qaranka Belgium, iyadoo loo tixgeliyay inuu yahay mid ka mid ah ciyaartooyda ugu wanaagsan kubadda cagta. Hazard waxaa lagu yaqaanaa hal-abuurnimadiisa, xawaaraha, baasaska qurxoon iyo gambiska. Hazard waxaa iska dhalay 2 ciyaartooy hore ee kubadda cagta. wuxuu kubadda cagta ka bilaabay Belgium-ka isagoo u ciyaarayay naadi ka dhisan deegaankiisa. sanadkii 2005 waxa uu u dhaqaaqay Faransiiska, halkaas oo uu ka bilaabay xirfadiisa sare ee kooxda Lille. Hazard wuxuu 2 sano ku qaatay akademiga kooxda isagoo 16 jir ah. wuxuu kulankiisii ugu horeeyay ee kooxdaas koowaad saftay bishii November 2007. wuxuu qayb muhiim ka noqday kooxda Lille markii uu macallin u ahaa Rudi Garcia, isagoo saftay 190 kulan. xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay wuxuu ku guuleystay abaalmarinta da'yarta sanadka ee Ligue 1, isagoo noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee Faransiis ahayn ee ku guuleystay abaalmarinta. xilli ciyaareedkii 2009-2010 Hazard ayaa mar kale hantay abaalmarinta isagoo noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee ku guuleystay abaalmarinta 2 jeer. waxaa sidoo kale loo magacaabay kooxda sanadka ee Ligue 1. xilli ciyaareedkii 2010-2011 wuxuu qayb ka ahaa kooxdii Lille ee ku guuleysatay horyaalka, iyadoo sabab u ahayd bandhigiisa. waxaa loo magacaabay laacibka sanadka Ligue 1. wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu yaraa ee ku guuleystay abaalmarinta. Hazard ayaa sidoo kale la siiyay abaalmarinta Bravo Award oo ay soo saarto majaajalada reer Talyaani ee Guardian Sportivo. bishii Juun 2012 Hazard ayaa u saxiixay kooxda Ingiriiska ee Chelsea, wuxuuna ku guuleystay UEFA Europa League xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay iyo BFA Young Player of the Year, ciyaaryahanka ugu yaraa ee markiisii labaad. xilli ciyaareedkii 2014-2015 wuxuu ka caawiyay Chelsea inay ku guuleysato League Cup iyo Premier League, isagoo helay abaalmarinta xiriirka qorayaasha kubadda cagta ee loo soo gaabiyo FWA iyo abaalmarinta ciyaaryahanka sanadka. 2 sano kadib wuxuu ku guuleystay horyaalkiisii labaad ee Ingiriiska, iyadoo Chelsea ay ku guuleysatay Premier League 2016-2017. sanadkii 2018 wuxuu ku guuleystay FA Cup, waxaana loo magacaabay kooxda sanadka ee Viva. waxa uu markii uu kula guuleystay Europa League bishii Juun 2019. kadib wuxuu ku biiray Real Madrid qiimo gaaraya ilaa iyo 150 milyan euro. Hazard waa ciyaaryahan caalami ah u dhashay dalka Belgium, isagoo dalkiisa u matalay 17 sano jirada iyo 19 sano jirada. Hazard ayaa saftay kulankiisii ugu horeeyay ee heer caalami bishii November 2008, isagoo da' ahaan jiray 17 sano. ciyaar saaxiibtinimo ay la ciyaarayeen Luxembourg. Hazard waxa uu ka dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay ee caalami wadanka Kazakhstan bishii October 2011. tan iyo markaasi wuxuu saftay in ka badan 100 kulan, wuxuuna xubin ka ahaa xulka Belgium ee gaaray rubac dhamaadkii koobka adduunka 2014, sidoo kalena koobka Yurub 2016. koobkii adduunka ee Viva 2018 isagoo ah kabtanka xulka Belgium ayuu gaarsiiyay kaalinta 3aad, taasoo ahayd dhamaystirkoodii ugu fiicnaa ee taariikhda. wuxuuna ku guuleystay bilada qalinka ee uu qaato ciyaaryahanka labaad ee ugu fiican tartanka, isagoo ka dambeeyay ciyaaryahanka kale ee Madrid. Hazard waa curadka 4 caruur ay waalidkiisu dhaleen, dhammaantoodna ciyaaro kubadda cagta uu ku jiro Torgan, kaasoo ku biiray Chelsea 2012, laakiin hadda u dheela kooxda Borussia Dortmund. Hazard iyo 3 walaaladiis waxaa lagu soo barbaaray jawi raaxo leh oo ay waalidkood ka heleen, iyagoo hubinaya inay haystaan wax kastoo ay u baahan yihiin si ay horumar u sameeyaan caruurtooda. qoysku wuxuu ku noolaa wax aan ka badnayn 3 mitir oo ay ka mid ah garoonka ay ku tababartaan. Hazard wuxuu taageer weyn u ahaa halyeygii kubad sameeyaha reer Faransa Zinedine Zidane, iyadoo Hazard uu ka daawan jiray telefishinada iyo qadka tooska internetka saacado badan.